Maama Hinde Ismaaciil Cabdi waa hooyada dhashay Mabsuud Kayse Axmed oo ah gabadh 12 jir ah kuna nool magaalada Hargeysa. Mabsuud yar waxa ay la dhibaataysan tahay xanuun ay ku dhalatay kaasi oo ah inaanay lahayn meeshii ay saxaradu soo mar lahayd, taasi oo ah qadarta Ilaahay subxaanahu wa ta'aala. Mabsuud yar waxa ay dhakhaatiirta dalku sheegeen in aan dalka gudihiisa waxba lagaga qaban karin. Waxa ay ka dhalatay reer danyar ah oo aan awoodin inay kula tacaalaan dhakhaatiir dibadda ah. Mabsuud ayaa waxa ay la nooshahay hooyadeed oo kaliya oo aan karayn wax ka badan inay u soo hasho quudal daruurigeeda maalinlaha ah. Maama Hinde ayaa waxa ay baaq u dirtay ummadda muslimiinta ah meel kasta oo ay joogaan iyo xukuumadda Somaliland. Waa Hinde Ismaaciil Cabdi, inanta yarna waa Mabsuud, way iga xanuunsanaysaa. Imika waxa weeyaan ilaa 12 jir, daba ma laha laga saxaroodo. Lugtuna waa naafay ka tahay lugtana. Meel walba waan geeyo, meel walban mariyaba wax laygu leeyahay waxba lagama qaban karayo. Dalka gudihiisa waxba lagama qaban karayo dibad mooyaane. Dibadna awood uma hayo aan ku geeyo. soo caawiyaan cid iyo ciirsi toona male aan aniga ahayn. Marka bulshada waxaan ka codsanayaa inay soo caawiyaan, dar Ilaahay igu soo caawiyaan. Ilmaha yaree la yidhi dibadda mooyaane dalka waxba lagama qaban karo. Awoodna uma hayo meel aan waxaan meel ku geeyo. Marka bulshada waxaan ka codsanayaa inay soo caawiyaan, dar Ilaahay igu soo caawiyaan. Ilmaha yaree la yidhi dibadda mooyaane dalka waxba lagama qaban karo. Awoodna uma hayo meel aan waxaan meel ku geeyo. Ilaa Boorama imaada waan geeyay, waxa laygu yidhi waxba kama qaban karno. La xiriiray ilaa adnan la xiriiray. Waxay igu dhahdeen waxba kama qaban karno. oo qaliinkeedana qaliin culus ah. Dawladda waxaan leeyahay wixii ay igu dhaamaan inay igu soo caawiyaan ilmaha yar ee dhibaataysan in la soo caawiyo. Mabsuud Kayse Maxamed baa la yiraahdaa. Mabsuud yar waxa ay u baahan tahay caawimaadda ummadda muslimiinta ah iyo Soomaalidaba idilkeed. Cid kasta oo ay wax ku tari karta awade marka aynu isku naxariisano ayuu Ilaahay inoo naxariisanayaa. Ciddii caawinaysa waxaanu ka codsanaynaa inay Maama Hinde kala xiriiraan lambarka shaashada ka muuqda.